Assalaamu calaykum. Dalka Burundi waa dal ka mid ah dalalka dhaca qaaradda faca weyn ee Afrika. Macluumada koowaad ee qof walba oo muuqaal ama maqaal ka qoraya dalkan in uu ku soo gudbiyo ay waajib ka tahay waa in dalkan uu yahay dalka ugu saboolsan dalalka caalamka oo idil. Wuxuu mar waliba kaalinta koowaad ka soo galaa dalalka ugu saboolsan dunida tan ee aan ku noolnahay. Caasimadda dalkan waa Gitega. Waxaa horey dalkan xarun ama caasimad ugu ahaan jirtay magaalada Bujumbura. Tirada dadka ku nool dalka Burundi waa 11 milyan oo ruux. Dalka Burundi waa dal xiran oon lahayn wax bad ah. Dowladdan waxay ku taallaa bartamaha waadiga Rift Valley. Waadigan Rift Valley wuxuu dhererkiisa gaarayaa 7,000 oo kiiloomitir. Waadigan wuxuu dadban yahay laga soo bilaabo Lubnaan, qaaradda Aasiya ilaa Mozambique, koonfur bari Afrika. Baaxadda dalka Burundi waa 27,800 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Xuduudaha dalkan yari ee Burundi. Dalkan wuxuu xuduud u leeyahay dalka Rwanda oo ka xadaysa jihada waqooyi, iyo Tanzania oo ka xigta jihada bari iyo jihada koonfureedba, iyo dalka Congo oo ka xiga jihada galbeed. Luqadda dalka. Luqadda rasmiga ee dalkan waa luqadda Kirundi iyo Faransiiska. Sidoo kale waxay dadka reer Burundi si ballaaran uga hadlaan luqadaha Kiswahiliga iyo Ingiriiska. Furaha dalka. Furaha nambarka ee dalkan waa 257 ama 257. Dhanka website-yada ama mareegta internetka waxaa dalkan lagu aqoonsadaa oo furo ah .bi. Waa halka furaha dalkeenu uu ka yahay .so. Xorriyaddii gumaystaha uu ka qaatay. Dalkan wuxuu xorriyaddiisu dabaaldegaa 1 Julaay. Bilowgii hore ee duulimaadka reer Yurub waxaa dalkan gumaystay dalka Germany. Kadib jabkii Jarmalka ee ka soo gaaray dagaalkii koowaad ee adduunka, wuxuu dalkan gacanta u galay Belgiumka. Dalkan Burundi waxay aad iskugu dhow yihiin amba aan dhaha waxay isku mid yihiin Rwanda dhan kasta marka laga eegaba. Dhanka gumaystaha waxaa wada gumaystay dalalka reer Yurub ee Germany iyo Belgiumka. Dalkan waxaa u badan labada qowmiyaed ee Hutuga iyo Tutsiga oo labada dhanba mar walba ku hardama. Aadna marar badan oo kala duwan isku dooxeen. Intaa waxaa ku eg muuqaalka maanta. Ha ilaawin inaad kanaalka subscribe saartid aan la socotid muuqaaladeena xiga. Assalaamu